kulan wanaagsan daawade qorsho xumida mucaaradka qaas ahaan midowga musharaxiinta oo waxaan qarsoonayn qof kasta inuu ka warqabo sida muuqata goluhu ma laha mabaadi maslaxad guud iyo wax mideeyatoona waxaan ku hayaa 3 arrin oo muujinaysa siyaasad xumadooda guud ila soco bilowgii sanadkan midowga musharaxiintu waxay kiciyeen buuq siyaasadeed xoogan kaas oo ugu dambeyn sababay gacan ka hadal iyo guluf colaadeed ka qarxay Muqdisho waxayna dalbadeen in maamulka iyo mas'uuliyadda doorashada laga wareejiyo madaxweyne Farmaajo koodii bishii tagtay ee May madaxweyne Farmaajo ayaa hortagay baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna mas'uuliyadda iyo maamulka doorashada ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble walaha sharafta leh waxaan rabaa inaan cadeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu hogaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada 7 bilood kadib badi musharaxiinta mucaaradka waxay xaqiiqsadeen talaxumadoodii maamulkii doorashada ay kala ordayeen madaxweyne Farmaajona waxay gacanta u galiyeen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kuwaas oo albaabada ka xirtay badi musharaxiinta mucaaradka 7 bilood kadib badi musharaxiintu waxay wali taagan yihiin madaxweyne Farmaajo waa inuu faraha kala baxaa doorashada 2 tan iyo dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2020ka qaar kamid ah xubnaha ugu cadcad midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya ku dhaleeceynayay in ciidamo Soomaali ay tababar ugu qaaday dalka Eritrea kuwaas oo la laayahay warkooda iyo wacaalkooda intaba iyaga oo cod dheer dawladda dhexe ugu celcelinayay in ciidamadaasi degdeg ah ay ugu soo celisay ciidooda hooyo toddobaadkan gudihiis isla xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo baayay xog tibaaxaysa in ciidamadii loo qaaday Eritrea oo soo dhameystay tababaradoodii dalka dib loogu soo celinayo iyaga oo dood ka keenay ciidamada in sababta dalka loogu soo celinayo ay tahay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in dalka uu ku qabsado 3 dhamaadkii bishii Juulaay ee sanadkan waxaa dalka ka amaqaadmay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana la soo afmeeray bishii tagtay ee November intii ay socotay doorashada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya midowga musharaxiintu waxay mashquul ku ahaayeen u kala hambalyeenta senataradii ku soo baxay doorashadaasi isla bishii tagtay ee November waxaa dalka ka amaqaadmay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya tani intii ay bilaabatay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka waxaa soo badanayay tabashooyinka ka soo yeeray midowga musharaxiinta xubno kamid ah waxa xaqiiqa inay jiraan tabashooyin ka imaanaya qaabka doorashada waqtigan dalka ay uga socoto laakiin tan cajiibka ah ayaa ah in xubno kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka markii la doorto xildhibaan garabkooda ah ay u hambaliyayaan halka marka la doorto xildhibaan garab kale ah ay ku tilmaamaan doorashadu inay tahay boob haddaba midowga musharaxiinta mucaaradku sida ay shacabka Soomaaliyeed uga gadi karaan in doorashada markii uu ku soo baxo xildhibaan garabkooda inay xalaal tahay markii uu ku soo baxo xildhibaan garabka kale ahna inay boob tahay maxaa u diiday inay la yimaadaan shax siyaasadeed halkii goor kasta ay ku goodin lahaayeen guluf colaadeed yaa garan kara waxa ay doonayaan midowga musharaxiinta mucaaradka siday kula muuqataa daawade